Hello, السلام عليكم. How you doing? سيلي من في عنيه. meesha waxaan rabaa in wax uu sheego gabdhaha Soomaaliyeed oo abuse-ku u maleeyaan jecel gabdhaha abuse-ka gabdhaha qaar abuse-ka jecel u maleeyaan marka la abuse gareynayo in la jecel yahay u maleeyaan oo maxaa dhahay jecel badan loo hayo laakiin isna jecel he abuse you abuse-ka kale mid maskaxi ahaan mid gacanta iyo mid feer iyo mid caay afka lagu caayna maadma lagu caayna iyo maxaa la midna hoos lagu dhigaa midna gabdhaha xooga markay burtaan burnaantaada iyo qaabkaaga qashinkaaga ka sheekeena abuse-ka kale wuu kala yahay isaga kala nooc marka abuse-ka gacanta ugu daran oo lagu damage gareynayo aniga gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdhaha yaryar wali u sheegay halka cunug iyo labada cunug lagu furayo hadan lagu laabanayo marka lagu soo inta lagu furo oo meelaha lagu soo fadhiisto run u maleey nin first child xaamilis adigoo ah feeraha inuu ka cakishay ya isku day adigana Ilaahay ka reebo adina gacanta iska gaclisay bari hadintu ku furay adana ka raacay marka qurux badnaatay inta meelaha lagu soo fadhiisto lagu ooyo soo cisho weliga uu ku abuse gareena wuxuu kula sugaa hadana mar kale mar adoo xaamilo ah mar kasto xaamilo naqatidna saasa lagu akisaa markaan gabdhow abuse-ka ma aha jecel qofku jecel kuma dhibaateeyo wax oo dhib dhan uu ka ilaalina respect you hoos kuma dhigaayo qalbi kaama jibinaayo maxaa la dhahay inaad dumar tahay ku ogaanaya oo ku naxariisanaya dhabarka kaama tooganaayo tuu kuma naqanaayo kuma khiyaamayo been kuma sheegaayo ma fahanti markaan abuse qaar they kill you inta ka cabsaneed garoobnimo abuse ha u dhiman abuse markaani naftaada jeclaa love yourself if you don't love yourself you are nothing naftaada jeclaa waysid waxaad tahay male qof wali jeclaada qofka markaa aragtid waxa you have to inaad ka danaysataa garoobnimo ka cabsanin garoobnimada ilaahay xaqiisa ka qornaato wixii ku qoran adduunka mare wax kasta lagu suubiyo wax ku qoran waa ma gafaysid